ku soo dhawow channelkayga magacaygu waa Ibrahim Adam. waxa ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay waa garashada qiimaha naftaada iyo awoodahaaga gaarka ah. sanadkii 1948 koox culimada baadha macdanta ayaa waxa ay tageen Afrika si ay u raadiyaan dhagaxanta qaaliga ah sida diamond-ta. culimadaas waxa ka mid ahaa caalim reer Japan ah oo lagu magacaabo Yuki. wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, wuxuu ahaa mid xamaasadiisu sareyso oo lagu bartay sabir iyo calool adayg. aroortii 5 subaxnimo ayuu toosi jiray si uu shaqadiisu u bilaabo, taas oo ahayd baaritaanka macdanta. 10 habeenimo ama 4 saac oo habeenimo hotelkiisa ayuu ku soo noqon jiray. maalinba maalin waxay u dhibtaba Yuki wax la taaban karo oo natiijo ah ma uusan gaarin. wuxuu go'aansaday in uu 2 asbuuc kadib shaqada joojiyo, dibna ugu laabto wadankiisii maadaama ay didiiladiisii ku dhamaatay rajo la'aan. tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee noloshiisa uu ka tanaasulo mid ka mid ah hadafyadiisa. maalintii u dambeysay Yuki shaqadiisii waxa uu soo gabagabeeyay 5tii galabnimo oo uu go'aansaday in uu hotelkii dib ugu noqdo, una sheego inuu ka baxayo hotelka wadankiisana dib ugu noqonayo. intii uu ku sii socday hotelka waxa ka hor yimid wiil yar oo 6 jir ah, gacantana ku wata dhagax weyn oo qaabkiisu yahay mid qariib ah. wiilkii yaraa waxa uu weydiistay Yuki inuu dhagaxan qaato oo uu kaga bedesho wax yar oo xalwad ah. Yuki wuu siiyay wiilkii yaraa xalwadii, waa uuna ka qaatay dhagaxii weynaa ee iftiimiyay. waxa uu nala tagay hotelkii si uu ugu baaro qalabkiisii uu gaarka ahaa ee uu ugu talagalay in uu ku baaro macdanta. indhihiisu waa ay rumaysan waayeen wixii uu arkay. mar labaad ayuu dib ugu celiyay baaritaankii, haddana mar kale ayuu ku celiyay baaridii. ku celcelinta ayuu ku waday. natiijadii baaritaankuna waxa ay noqotay in uu dhagaxii noqday diamond-tii ugu weyneyd ee intii uu noolaa u arko, taas uu qiimaheedu kor u dhaafayo $10 milyan. intaa kadib Yuki daraasadii uu qoray waxa uu ku sheegay in ilmaha yari uu haystay hanti aad u badan, laakiin uu ahaa mid aan qiimaheeda garanaynin, taas oo sababtay inuu ku iibiyo qiimo aad u raqiis ah. haddii uu garan lahaa qiimaha dhabta ah ee uu leeyahay, kumuusan iibiyeen qiimahaas jaban. haddii uu garan lahaa, taasi waxay sabab u noqon lahayd badbaadinta naftiisa iyo qoyskiisa, xitaa tuuladiisa oo dhan, oo ay ka badbaadin lahayd faqriga iyo gaajada. dadka intooda badani ma oga xaqiiqada awoodahooda iyo naftooda. waqtigiisa ayuu qofku luminayaa, noloshiisa iyo naftiisa waxa uu ku iibinayaa qiimo aad u jaban, isla sida ilmaha yar oo kale oo aan garan qiimaha wixii uu haystay ee gacantiisa ku jiray. waxaan jeclaystay inaan intaas idin wadaago. waxaa lagu talinayaa in aad kanaalkan ku soo biirto oo aad subscribe saarto, sidoo kale muuqaalkan aad like garayso, haddii aad awoodidna aad asxaabtaada la sii wadaagto sababo la xiriiro in aad caawiso milkiilaha kanaalkan. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. ku raaxayso noloshaada, waad qurux badan tahay. peace. naxariistu waa dhalad Rabbi kugu dhaxaasay. qofka aad mar dhugataa soo nasiibku